Okay, marka hadda su'aasha meeshan ayaan ku qornay haddaad xasuusatid. Marka waxaa u baahannahay for example waxaan haysanaa array ayaan haysanaa. Arrayga waxaa nambarada ku dhex jira waxaa weeye 5, 3, 2, 5, 7 iyo 0. Marka solutionka ugu horeysa waxaan isticmaalaynaa brute force ama naive solution. Waa solution aad iyo aad u khafiifsan waaye, waa solution fudud, laakiin wuxuu qaadanaya waqti badan ayuu qaadanayaa. Hadduu maaragtay hadda sizeka waxaa haysanaa 1, 2, 3, 4, 5, 6 ayaan haysanaa, laakiin sizeka hadduu yahay million ama cabirka dhan oo arrayga hadduu million yahay waqti ayuu qaadanayaa kaas. Marka laakiin waa haddii oo interview question haddii lagu weydiiyo markasta waa inaad isku daydaa inaad samaysid maaragtay brute force solution ama naive solution saad hodhowti maaragtay si khatara ama aan improve ama saad si fiican uga sii dhigi lahayd. Marka waa isla wada maraynaa su'aalaha. Marka fikradda waxa weeye maaragtay waxaad isticmaalaysaa laba loop ayaad isticmaalaysaa. Loopka koowaad wuxuu ka bilowdaa waa I waaye, loopka labaadna waa J waaye. Marka labadaa number ayaad isku dhufanaysaa. Marka 5 times 3 wuxuu noqonayaa 15. Kabacdi J ayaad maaragtay hore u wadaysaa. Kabacdi waxaad qoraysaa 5 times 2 waxa weeye 10. Kabacdi numberkan waxaad ka dhigaysaa 10. Kabacdi waa isku baroobeene labada numberkee baa weyn 15 iyo 10. 15 ayaa weyn, marka ma bedelayno numberka. Kabacdi J-na waa wadaynaa. Ku xiga ayaan ku dhufanaynaa. Kabacdi hadda waxaa dhaynaa 5 times 5 waa 25. Kabacdi waa bedelaynaa numberkaas, waxaad ka dhigaynaa 25. Kabacdi waa isla qiimeynaynaa numberkan maximum productiga waa 15. Kan hadda haysanaa current max waa 25. Marka 25 ayaa weyn, marka waan bedelaynaa, update ayaan ku sameynaynaa ama waa bedelaynaa. 25 ayaan ka dhigaynaa. Kabacdi J waa hore ayaan usii wadaynaa. Kabacdi waxaan ka dhigaynaa 5 times 7 waxa waa 37. Kabacdi waa bedelaynaa. Waxaan ka dhigaynaa 5 times 7 waxa waa 35 weeye. Kabacdi labadaa number yaa weyn, 35 ayaa weyn, marka update aan dhahaynaa ama waa bedelaynaa. 35 ayaan ka dhigaynaa. Kabacdi J ayaan ku xiga wadaynaa. Marka 5 times 0 waxa weeye 0 waaye. Marka hadda kaas waa dhammaynay. Kabacdi waxaan sameynaynaa I ayaan inta soo wadaynaa. I ayaan waxaan ku xijinaynaa ku xiga. Kabacdi J-na inta ayuu ka bilaabanaya. Waayo J markasta I ayuu ka horeeyaa. Marka processkan saas ayaan ku wadaynaa. Hodhowti waxaan 3 times 2 waxa waaye 6 weeye. Marka 6 iyo marka waa isku dayaynaa 6 iyo 35 kee baa weyn, 35 ayaa weyn, marka ma bedelayno saas. Marka saas ayaan processkan ku wadaynaa. Laakiin solutionkan maaragtay waa solution fiican maaha. Marka hadda waan ila share garaynayaa saan u qorayno programka. Okay, marka solutionka marka oo brute forcega waxa weeye kan weeye. Marka waxaan haysanaa laba loop ayaan haysanaa. Loopka koowaad wuxuu ka bilowdaa I weeye ilaa wuxuu ku dhammaadaa length sizeka -1 ayuu ku dhammaadaa. Marka second last ereyga ugu dambeeya ku xiga ayuu ku dhammaadaa. Kabacdi waxaan haysanaa J ayaan haysanaa. J wuxuu ka bilowdaa I+1 ayuu ka bilowdaa ilaa inta maaragtay sizeka size -1 ayuu ku dhammaadaa. Kabacdi waxaan qaadanaynaa I-ga maaragtay numberka oo indexiga I ku dhex jira ayaan ku dhufanaynaa numberka oo maaragtay index J ku dhex jira. Kabacdi waxaan qaadanaynaa maximum, labada numberka ugu weyn ayaan qaadanaynaa. Marka solutionka waa brute force waaye. Marka waan isla baroweynaynaa inuu shaqeeyo in kale. Marka kan waxa waa brute force weeye. Marka waxaan qoray test case ayaan qoray. Marka waan baroweynaynaa inuu shaqeeyo in kale. Koley waa test gareeyey. Marka haddaad aragtid laba test ayaan qoray. Test inputka koowaad waxa weeye waa numberkan weeye.
test inputka labaadna waxa weeye numberkan weeye marka brute force test 1 waxaan ugu baasanaa inputka koowaad ayaan ugu baasanaa kabacdi resultiga ayaan ku proveynayna aan ku qiimeynayna inuu 35 yahay hadduu yahay testigana uu ku baasay haddii kale qalad ayuu noqday marka testig labaad ayaan isla proveynayna tanna waxa weeye input testiga waxaan u baasanaa negative numbers ayaan u baasanaa kabacdi run ayaan dhahaynaa testigeena saan u aragnay inuu ku baasay haddaa saad u aragtid uu ku baasay oo waxaan helnay 24 ayaan helnay waayo wuxuu negative 3 times negative 8 waa labada number ugu weyn markaas ku dhufano waaye marka kaas waa solutionkii koowaad weeye waa brute force waaye haddaan aragno brute forcing wuxuu qaadanaya waxa weeye n times m n waxa weeye loopka koowaad ilaa intuu ka soconayo waa loopka koowaad m na waxa weeye loopka labaad waaye ilaa intuu ka dhammaanayo marka n times m wuxuu noqonayaa n square waaye marka for example lengthigeena hadduu yahay 6 wuxuu noqonayaa 6 squared marka 36 times ayuu run dhahayaa marka waa really slow waa ma fiicna marka waxaa aad iyo aad adigu maaragtay uusan u fiicneen marka improve ayaan sameynayn ama waa si fiican ayaan programkan ka dhigaynaa suu maaragtay program resultiga fiican suu si dhaqso leh oo nagu siiyo marka methodkii hore xoogaa slow ayuu ahaa waayo wuxuu qaadanayaa complexiga wuxuu ahaa big O of n square way marka waan method kale ayaan isticmaali karnaa sidoo ah maaragtay elementiga waxaan ka dhiganaa sort ayaan dhahaynaa oo maaragtay haddaad aragtid elementiga waxa weeye 5 3 2 5 7 0 marka waa sort ayaan dhahaynaa marka elementiga ugu yar ayaad ku bilaabeynaa tukusii xiga ugu weynna meesha ugu dambeysa ayaad keenaynaa marka sort ayaan dhahnay waan kala soconay sida maaragtay ereyga numberka ugu yar ayaa ku bilownay ilaa numberka ugu dambeeya marka sorting ayaan sameynay kabacdi hal loop ayaan qoraynaa loopkaas haddana isku bilaaba marka I ayuu ka bilowdaa kabacdi elementigan iyo elementiga ku xiga ayaan isku dhufanaynaa marka 0 times 0 times 2 waxa weeye 0 weeye kabacdi wax update ma sameynayno kabacdi tanna saan ayaan wadaynaa ayadana saan ayaan u wadaynaa marka hadda ayada waxa weeye 2 waaye numberka ku xigana waa 3 2 times 3 waa 6 ayaan qoraynaa numberka maximumna 6 uu ka weyn yahay 0 marka 6 ayaan ka dhigaynaa sidoo kale haddana hore ayaan usii soconaynaa marka waxaa dhahnaa 3 times 5 waa 15 marka numberka 15 ayaan ka dhigaynaa waa current maximum waa 15 maximum productigna waxaan ka dhiganaa waa 15 waayo 6 uu ka yaryahay 15 kabacdi hore ayaan usii soconaynaa kabacdi 5 times 5 ayaan ka dhiganaa waxa weye 25 weye 25na uu ka weyn yahay 15 marka 25 ayaan ka dhigaynaa kabacdi I plus 1 ayaan hore u soconaynaa ayadana waxaan ka dhiganaa bartan ayuu ku istaagayaa ayada kabacdi 5 times 7 waxa weeye 35 haddana waa isla boroweynaynaa waxaa isla boroweynaynaa 25 iyo 35 ayaa weyn marka update ayaan dhahaynaa 35 ayaan ka dhigaynaa bes hadda marka saas ayuu ku dhammaaday marka algorithm aan qornay kan waxa weeye complexigiis waxa waa n log n waayo sortingka wuxuu qaataa waxa weeye n log n weeye kabacdi loopkana waxaan tulmaraynaa one loop ayaan qoraynaa oo up to n waaye nna waxa waaye sizeka marka n plus n log n wuxuuna siinayaa n log n weeye marka hadda solutionka ayaan ila share garaynayaa waxaan qornay solution labaad ayaan qornay solutionkan waxa weeye maximum sorted method waaye marka ideada ama fikradda waxa weeye nambarada ayaan soocinaa sorted ayaan ka dhigaynaa arrayga waa inaan kala soconaa oo maaragtay sort waa inaan dhahnaa in ascending order waa inaad ku bilownaa numberka ugu yar ayuu ku bilaabanayaa kabacdi numberka ku xiga waa number ka weyn number kaloo kasii weyn ilaa intuu maaragtay numberka ka dhammaanayo marka ascending order ayaan sorted ayaan ku sameynaynaa arrayga waan kala soocaynaa anagoo ku bilaabanaa numberka ugu yar
oo ku dhameynayna numberka ugu weyn. Waayo markaa kala socno in ascending order markaa kala socno numberka hore ayuu sii weynaanayaa. Number kasta numberka ku sii xiga uu ka sii weynaya. Marka sorted ayaa ku sameynay. Kabacdi hal loop ayaan qoraynaa. Maximum product variable ayaan sameysanay. Kabacdi hal loop ayaan qoraynaa. Marka loopkaas waxaan isku dhufanaynaa numberkan hataa haysano indexiga oo ku dhex jira arraygan iyo numberka ku xiga ayaan isku dhufanaynaa. Labadan number ayaan maaragtay fiirinaynaa kala weyn. Marka currentiga aan haysano current product labada number aan isku dhufanay resultiga ayaan ku save gareynay. Maximum productina waan haysanaa. Marka labada numberka ugu weyn ayaan inta ku haynaynaa. Marka loopkan ayuu soconaya ilaa inta maaragtay uu ka dhamaanayo maaragtay arrayga. Marka waa isla proweynayna. Marka test case ayaan qornay. Same test case waaye. Test inputka iyo labada kale. Marka run ayaan dhahaynaa. Marka kan waxa weeye array in sorted. Marka sorted markaan isticmaalo sidoo kale uu ku baasay waa same isku mid waa resultiga. Tan kalena markaan u baasno negative values marka u baasno sidoo kale waa isku mid weeye. Marka labada number labada method ama labada solution aan nila share gareeyay labadooda buu shaqeynayaa. Midna waxa weeye sorted numberada waan kala soocaynaa intaana maaragtay aan maaragtay ka jawaabin. Ka kalena laba loop ayaan isticmaalaynaa. Marka kan marka wuxuu qaataa complexigiisa oo markaan kala socno ereyada waxa weeye n log n. Waayo sorted complexigiisa waxa weeye n log n. Kabacdi hal loop ayaan qoraynaa anagoo dul marayna numberada saan maaragtay isku dhufanaano ogaadin labada number. Tan wuxuu qaataa waxa weeye O of n waaye. Marka resultigayna waxa weeye n plus n log n. Hodoti wuxuu noqonayaa n log n big of n log n waayo labada number wuxuu noqonayaa maaragtay 2n plus 2n log n. Kabacdi numberka waa 2 waa constant weeye. Marka kaas waa ka reebaynaa. Marka resultigan wuxuu noqonayaa n log n waaye. In total waxa dhan la isku wada reebay waa n log n ayuu noqonayaa. Okay, solutionkii hore waan eegnay maaragtay numberada waan kala soconay. Numberka ugu yar ayaan ku bilownay. Numberka ugu weynna meesha ugu dambeysaas ayaa keenay. Saa hodhotii calculationka u sameyno. Laakiin kaas wuxuu ahaa n log n ayuu ahaa. Marka linear waxaan rabnaa markasta maaragtay inaan markastaan programka qorayno waa inuu markasta ahaadaa linear. Waa inuu ahaadaa big of n waa inuu noqdaa. Marka solutionkan ayaan isla sameynaynaa. Marka hal loop ayaan qoraynaa. Loopka waxa waa I waaye ilaa maaragtay n-1 ayuu ku dhamaadaa. Kabacdi marka fikradda waxaan u baahanahay laba number oo maximum labada number oo ugu weyn inaan helno iyo labada number oo ugu yar. Marka hadda meeshan labada number oo ugu weyn waxa weeye 5 iyo 7. Marka waxaan haysanaa maximum 1 numberka ugu weyn oo koowaad waxa weeye 5. Numberka ku xiga oo weyn waxa weeye 5. Marka 7 and 5 weeye. Labada number oo ugu yarna waxa weeye 0 waa numberka koowaad oo ugu yar. Numberka labaad oo ku xiga oo ku yarna waxa weeye 2. Markaan saan helno haddii aan rabno labada number oo ugu weyn waxaan sameynaynaa maximum product waxa weeye numberka koowaad waa 7 times numberka labaad 5 35 weeye. Labada number oo ugu yarna waxa weeye 0 times 2. Waayo marmar arraygeena wuxuu noqon karaa negative ayuu noqon karaa. Marka labada number haddaan isku dhufano negative times negative wuxuu na siinayaa positive. Marka saas ayaan labada number ugu yariisa isku dhufanaynaa labada number ugu weynna isku dhufanaynaa. Kabacdi waxaan qaadanaynaa maximum labada number ugu weyn ayaan qaadanaynaa. Waayo kan markaan aragno 5 times 7 waxa weeye 35. 0 times 2 na waxa weeye 0. Marka labada number ugu weyn waxa weeye 35. Waayo 0 wuu yar yahay 35na waa weyn yahay. Marka maximumka ayaan qaadanaynaa oo resultiga ayaan ku save gareynaynaa. Marka kan linear waaye. One loop basaan isticmaalaynaa. Labada number ayaan ka soo qaadanaynaa arrayga. Labada number markaa helno kabacdi labada number oo yariis ayaan helaynaa. Kabacdi waa isku dhufanaynaa labada yariiska number iyo labada waaweynka number ayaan isku dhufanaynaa. Kabacdi labada number ka ugu weyn ayaan qaadanaynaa. Marka hata solutionka ayaan ila share gareynayaa.
solutionka labaad aan ila share garaynaya waxa weeye linear weeye waayo linear wuxuu qaataa o of n waaye waa really fast waaye waayo n squared haddaan aragno waa slow waaye kabacdi waxaan ka dhignay n log n ayaan ka dhignay n log n waqti ayuu qaataasna marka hadda waxaan solutionkeena improve ayaan ku sameynaynaa si fiican ayaan uga jawaabaynaa problemka anagoo isticmaalayna o of n marka waxaan isticmaalaynaa maximumka numberka koowaad waxaan ku save garaynaynaa waxa weyn index arrayga indexa koowaad kabacdi maximum 2ga default value ayaan siina oo minimum ah waa array minimum waxaa adig 2 million waaye iyo xoogaa lasii raacsan yahay sidoo kale minimumka koowaad waxaan ka dhignay arrayga indexa koowaad meeshu ku dhex jiro marka labadan isku wada mid weeye kabacdi minimumka labaadna waxaan ka dhignay maximum value ayaan ka dhignay kan waxa waa negative 2 million waaye oo xoogaa sii raacsan yahay kana positive 2 million waaye oo xoogaa sii raacsan yahay kuwan waa maaragtay waa just waa initialize ayaan ku haynaynaa hodhowti hal loop ayaan qoraynaa loopkaas ayaan fiirinaynaa marka loopkan waxaan ka helaynaa labada number oo maaragtay ugu weyn iyo labada number oo ugu yar marka update ayaan sameynaynaa marka current indexi ama elementiga hadda ku dhex jirno hadduu ka weyn yahay maximum kabacdi update ayaan dhahaynaa maximum waxaan ka dhigaynaa numberka hadda aan ku dhex jirno maximum 2na waxaa ugu baasaynaa maximum waa numberkii hore marka saas ayaan wadaynaa sidoo kale hadduu maaragtay numberkan hadduusan kan ka weyneyn waxaa proweynaynaa numberka hadda ku dhex jirno inuu ka weyn yahay maximum 2 numberka labaad kabacdi update ayaan ku sameynaynaa sidoo kale haddaan rabno numberka labada number oo ugu yariisana saas ayaan sameynaynaa oo hodhowtii update ayaan dhahaynaa markaas maximum product waa isku dhufanaynaa labadan number minimum productina waa isku dhufanaynaa kabacdi resultiga waxaan qaadanaynaa labada number oo ugu weyn marka waa proweynaynaa inuu shaqeeyo kabacdi run ayaan dhahaynaa linear waaye kan linear method waa inuu ku baasaa haddaa aragtay uu ku baasay waayo resultiga waa isku mid waa 35 waaye sidoo kale negative value haddaa ku proweyno sidoo kale waa inuu ku baasaa okay uu ku baasay waayo negative numberka waa 24 waaye resultkan 24 ayuu u yahay waayo negative 3 times negative 8 hodhowti haddaan wada qorno resultiga uu ku wada baasaya marka saas ayaad maaragtay waayo solution 3 solution ayaan siiyey marka 3daas solution markasta waxaa fiican inaad ku bilowday kan oo waa naive solution waaye hodhowti improve ama si fiican ayaan kasii dhigi kartaa interviewga markii lagu weydiiyo ama jawaab lagu siiyo markasta ku bilow brute force ku bilow saa qofka u tusisay inaad program taqaanid kabacdi hadduu interview ku dhaho okay solutionka wuu shaqeynayaa laakiin can you do better si fiican ma usii sameyn kartaa oo maaragtay programkaada faster oo ama efficient ma ka dhigi kartaa si uu u dhaqsado markaas ayaad maaragtay fiirinaysaa maaragtay time complexity ayaa compare ama waa isku qiimeynaysaa complexiga marka always kugu fiican waa o of n waaye marka solutionkan ayaan maaragtay 3 solutionkaas ayaa wada isticmaali kartaa marka waxaan rajeynaya inaad fahantay solutionkeeya haddaada fahmin always su-aal haddaa qabtid comment soo dhig insha allah waa kaaga jawaabaya